السلام عليكم في ملكيجات وذا قرح بدناواني والسلام دمانتين وحن رجينا سدان عافمات وقوينا كان إنات عافمات وقبي دونتان أدو إلهي إدمو أصحاب الشرط لايك تيكم دي قرح بدن يالا وذا بقيلنين هدو إلهي إدمو إرمان توحانا وذا لو ما دو كليا انت هذا نقرسن كهر اسويدي ومحي كور كدب حقو صوبح دون رأي آد مهم وآه laba qodob waa maanta ka hadli rabaa labada qodob waxaan u kala qaadi doonaa markii aad guriga hooyada aad joogi jirtay in markii lagu guursado waxyaabaha farqiga u dhaxeeyo oo kaliya maadada koowaad aan ku hormarayn waxay tahay markii aad guriga hooyada joogtay waxaad tahay mid kibir badan waxaad tahay mid asxaabo badan leh waxaad tahay mid wax walba ee ayada farteeda ku fiiqato mar walba la siiyo waxaad tahay mid waalidiin loo yahay oo kaliya oo adigana aad tahay wiilkii oo waalidka loo ahaa ma ka fikirtay waxaas oo dhan waxa lagu soo binayo in ay tahay farxadaada in laga talinayo oo kaliya laakiin markii aad guursato noloshii hore ma usoo wadi doontaa mise waa ka tanaasuli doontaa nolol cusub bilaaban doontaa asxaabay inkaan weydiina su'aashaas markii lagu guursado waxaa noqonaysaa mid la amro waxaa noqonaysaa mid nolol kasta weji kasta soo maro ay ka gudubto waxaa noqonaysaa mid sabarto waxaa noqonaysaa waalid يعني wiilka adiga ku qabo oo kale wuxuu ciyaalku wax u yahay adeerka oo kale waxa noqonaysaa eedo midku abtigu u yahay camalna waxa noqonaysaa habriyara noqonaysaa wixii la dhashtay oo dhan waxa noqonaysaa dumaashi ilaa waxa ku soo koray mas'uuliyad aad iyo aad u weyn afkaaga ahaatay noloshii hore oo hooyada iyo aabaha ku soo barbaariyeen oo kibirka badneed miyaa ku dhaqmi lahayd oo wax walba loo tanaasuli jiray oo la siin jiray miyaa ku dhaqmi lahayd mise noloshan adiga aad mas'uuliyad qaaday weji walba ay kugu imaato in aad ku sabarto aad suubin lahayd yacni wax haddii aad waysid xataa shayga aad sheegatay haddii lagu siin waayo reerka ma burburinaysaa mise reerka u sabraysaa aad dhaqanaysaa waxaan asxaabtayda su'aashaas soo weydiiyay waxaan rajeynayaa inaad si fiican ii soo jawaabi doontaan haddii ilaahay idmo horna waa u sii wadi doonaa su'aalahan oo kale waan soo badin doonaa haddii ilaahay idmo hadda waqtiga igu yaraaday laakiin fiidiyoyaal kaleente waxaan rajeynayaa in aan noo soo geliyo aan noo soo badiyo su'aasha komandigan ee suga oo quruxda badan noloshii qormiya ku dhaqmaysaa mase noloshaada cusub buug cusub u furi doontaa haddii ilaahay idmo baay